hawsha ka qayb qaadan lahaa qaarkood oo naga kala maqmaqan iyo daraadeed iyo xogaa dib aan u hakanay oo dib dhacayri nagu yimi kuwaasuna insha Allah waa noo dhamaanayaan dhaqsaan u bilaabaynaa labadii reerba si wanaagsan baan u aragnay in allaaliya intiin nabaddu aan isleenahay way ku xidhmaysay ama waan looga maarmayn waanu ka qaadnay wacad iyo ballan iyo baalkiyo waanu haynaa waxa jira dad aanu xidhnay oo xabsi ku jira oo labada beelood ka tirsan arrintaasna waa arrin aanu nabadda ku bislaynayno fadqalalada ku xakabaynayno kuna soo dhaweynayno sidii dadku ay u degi lahaayeen halkan waxaan ku fadhinaa xukuumaddii iyo madax dhaqameedyadii iyo culimada diinkii dhexdhexaadinta ka waday labada beelood ee koonfurta Sool sida wasiirku sheegayna meel aad u wanaagsan bay hadda noo maraysaa maanta waxaan oran karnaa ergooyinkii dhexdhexaadinta sameynayay iyo xukuumaddii oo wada socda iyo labadii beelood oo dood badan iyo hadal badan ka bacdi aqbalay inaanu arrintii gudagallo shuruud la'aan arrintaas meel fiican bay noo maraysaa ilaahay waxaan ka baryaynaa intiina fadqaladayn jirtay iyo intii waxyaalihii hore banjarin jirtay inuu ilaahay naga qabto annagana ilaahay daacad nooga dhigo hawshaasna rajo aad u wanaagsan baan ka qabnaa maalmaha soo socdana waxaan rajaynaynaa inuu shirku noo furmo wasiirka iyo suldaankuba u sheegeen hawshan aynu ku jirna meel wanaagsanna way noo maraysaa waxa qura ee noo hadhay waxa waa dheedkii iyo maalintii oo si dhaqso ah aanu iyadana u qabanay oo la iman doono marka ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu arrintaasi si khayr qabta inoogu dhameeyo